السلام عليكم أخواتي الصومال مالك جوجتين كسر دوال جنرال كداوني سوى نور الدين وفشل بليت دانو سبتا سبسكرايب كنوصا وعنق يلو كشيكاه هو يدا قيمة إلا ده ما شاء الله هو يدا إلهي هداف قيمة هذا وقيمة لسوق كوبيش كريم ما شاء الله مركا نالا داود عنق يير سيدا وقهد الله هو يدي hooyo malaan wax lagu macneeyo oo u qalma balse hadii aan waraada ka dhiguuxisa qalbigayga wax ka yiraahdo erey hooyo aslaan wuxuu ka yimid hooyo oo ah wax lagu yirto hooyo waa asalkii iyo hooyiga alla ka abuuray aadanaha oo idin hooyo waa barbaarsan nagu soo dhaweysay adduunka xilli aan ahayn kuwa daciif ah oo aan wax qabsan hooyo waa ruuxii naga cankade xilli aan adduunka qariib ku ahayn aqoon aan lahayn awood aan lahayn oo aan ahayn kuwa ceer ah oo qaaban hooyo xilliga waa ayna quudisay waxa ayna siisay xubin ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan jirkeeda oo ah naasaha oo aan ka nugnay caana nolosheena wax weyn u taray hooyo dhabteeda ayaan ku saxaroonay ufna maysan oran xitaa hal mar weynu oonay iyadoo hurdaysan oo hurdadii u baahan markaasay hurdadii daraadeen iskaga daysay waynu xanuunsanay iyadoo caafimaad qabta bayna xanuunsatay waynu baahanay iyadoo baahan ayay waxna siisay anagoo daragsan ayaan seexanay iyadoo baahan ayay seexatay dusheeda ayay noo qaaday iyadoo xanuunsan hooyo waa geed weyn lagu nasto misna mirihiisaan dhammaanaynin waa in lagu anbaxo misna biyihiisaan guraynin waa cuud la shita xili walba oo aad ka hesha caraf iyo udgoon hooyo waxay inahuusa jecel naxariis waxay xijaab noogu naqatay wax walba oo na soo wajaa hooyo waxay noo hurtay nafteeda si ay u badbaadiso nafteena qof aan hooyo lahayn waa qof aan hooy lahayn oo kale hooyo waa madraso wax lagu barto ruuxii ka soo baxay duruusteeda ugu gudbo aafooyinka noloshiisa soo wajaa hooyo waxa ayna bartay waxa uu yahay jecelka sida awgeed jecelka ugu horeeyaan qof u qaadnay waa jecelka aan iyada u qaadnay midka uu dambeeyay uu yahay midka aan iyada u hayno nolosha quruxdeeda waa hooyo hooyo la'aanteed nolol ma jirto wax walba hooyo ayaa ugu horeysa sidaa darteed waxa jirta oo dhahaysa sidaan in la noolaado waxa loo jeclaadaa si aysan hooyo ugu ooyin geeridaada qalbiga hooyo waa qalbi la mid ah badweyn oo aad salkeeda ugu tagaysid naxariis iyo xasilooni waxaan laga guboobaynin oo aan laga duqoobaynin waa jecelka aan hooyo u qabno nolosha inay jirto misna ay waarto hooyo ayaa sabab u ah wax walba adduunka yaal way duqooba wayna qiimo dhacaan balse hooyanimadu ma duqooba mana qiimo dhacdo wax ka wanaagsan oo ka farxad badan ma jirto marka ay hooyo laabta ku geliso ay ku shumiso kadib alla ay ku bariso hooyo waxa ay nala soo martay dhib badan iyo xilliyo badan oo ay daraadeen u una calaacashay balse xilliyada anaga maana ogeyn oo ay weynaga qorsoonayeen sida xilligii walac ay ahayd iyo xilligeena foolanaysay iyo xilliyo kale oo xanuun badan hooyo waxaa sharaf karaamo wanaag ugu filan inay hooyo noqotay hooyo waa jecel aan xad iyo xuduud midna lahayn adduun iyo aakhira haddii aad doonaysid barwaaqo iyo farxad u jilicsanaa hooyadaada haddii aad doonaysid jannadu waxay ku jirtaa hooyadaada labadeed lug dhexdood ka faa'iidayso fursadaad aad maanta haysatid ogow waxaa imaan doonta maalin aad u xiisi doonto inaad dhukato lugaha hooyada balse aadan heli doonin حقا هويadu nagu leedahay ma aha mid la soo koobi kara waa mid xitaa iyadoo dushiisaan aad xaj kala soo daaftid uusan ka dhicin oo diin aso ka dhici doonin sidaas ayay hooyadu xaq u leedahay waana waajib inaan siino mudnaan aadami kala siiyo mid ku sareeya hooyadu waa la muraan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hooyadana xaqeeda lama soo koobi karo diintana 3 jeer xaq siisa hooyadu marka qof alla la qofta hooyada u nooshahay hadda ha ka faa'iideysato